كل كيران ما أنتم حداري رد سال الله سعطان وح حالي مجال هالجيسان يقول حالي أقاسمه يقول تلفزيون ستار سيدو كلنا واحد درد يقول حالي مجال هالجيسان ملكيله تلفزيون يونيفرسال وكيل كي سومالا متشوي لبدا دعده runtii waxay ahaayeen laba dhacdo oo aan u aragno soo jaan runtii inay yihiin arrimo xadguduba oo saxaafadda Soomaaliland ku xadguduba tusaale ahaan mulkiilaha telefishinka Universal iyo wakiilka Soomaaliland u jooga telefishinkaas ciidamada sirdoonka gobolka Muqdisho baa xiray iyagoo aan si sharci runtii xadgiisa u marin sharciga Soomaaliland wuxuu dhigayaa in maxkamad awood u leh wariyaasha ay xiri karto marka waxaan u aragnaa in sirdoonka gobolka oo runtii horena u xiray suxufiyiin sifa sharci darro ugu xiray runtii inay nimankaasi u xireen xaruntooda ku xidheen habeennimadii oo dhan ilaa aroonimadii aan baafinaynay isla aroonimadiina iyagoo aan wax liyaala wax la weydiiyay aanay jirin maxkamad la geeyay aanay jirin runtii xorriyadoodii la socodiyay marka waxaan u aragnaa runtii iska xadhiga dadka la iska xiray ama wariyaasha la iska xiray iyo iska soo deynta la iska soo deynaa runtii labaduba inay dalkan cawaaqib xumo u keenayaan haddii qofka dembi lagu hayo runtii in waxa wanaagsan sifa sharci marka hore loo maro isla markaana sifa sharci lagu sii daayo inkastoo lagu mahadnaqayno xukuumadda Soomaaliland runtii inta badan in arrimaha saxaafadda ay xal ka gaadho haddii xukun ku dhaco iyo inta aan xukun ku dhicinba haddana waxaan u aragnaa soo noqoshada xadhiga suxufiyiinta la iska xirayo iyadoo sharci loo marin haddana la iska soo deynayo iyadoo sharci loo marin isla markaana hay'adihii ku shaqada lahaa aanay xirin runtii inay nasiib darro dalkan mar walba magac xumo u keenaysa ay tahay bulshada caalamka runtii sumcad xumo iyo karaama dhac maalin marka suxufiyiin la iska xiro runtii u furaysa baab inta badan ka aanu ka dagaalano sooljahan oo inaan magac xumo iyo runtii tacadiye ka dhana saxaafadda Soomaaliland aan lagu arag sida dastuurka Soomaaliland dhigayo sida xeerka saxaafadda dhigayo ururka soolj wuxuu ku shaqeyn karaa ama ka shaqeyn karaa dal dastuurkiisa qodobada uu dhigay la ixtiraamayo haddii xorriyatul qowl noqoto iyo haddii madax banaani saxaafadda noqoto markaan u imaado maxamed baashi xaaji xasan xarigiisa runtii xalay waxaan joogay xaflad lagu qabtay hotelka Masar oo lagu xusayay 20 February oo maalin qaran oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland runtii asteeyay digreeto ku soo saaray in la xuso maalintaas runtii waxa ay ka turjumaysay ama ay ka hadlaysay taariikhda dalkan loo soo maray oo runtii madax banaanida xorriyatul qowlka sida aad la socotaan 20 February waxay ahayd maalin ku suntan dhaqdhaqaaq xorriyad doon oo dhalinyaradii iyo aqoonyahankii Soomaaliland ee waqtigaa jooga runtii ay ku muujiyeen dareenkooda taasoo dhiig iyo dhaawac iyo xadhig runtii dhalisay maxamed baashi xaaji xasan khudbadii waxaa la munaasabadaasi ka soo jeediyay waxay runtii la xiriirdhay oo ay ka dareen celinaysay oo runtii muujinaysay oo fasiraysay maalintaasi wixii loo soo maray uma aragno in ay dembi tahay maadaama dastuurka dalkani damaanad qaaday madax banaanida saxaafadda iyo madax banaanida iyo xorriyatul qowlka dadka reer Soomaaliland martii dembi inay ku mutaystaan ilaa hadda ma hayno meel ku xidhay maxamed baashi xaaji xasan runtii sidoo kale ilaa hadda lama horkeenin maxkamad waxaan u aragnaa arrintaas runtii inay tahay jujuub iyo in sharciyadii dalka runtii si faqadan loo isticmaalo loo maareynayo ururka sooj marnaba ma berber istaagayo ma taageerayo suxufi qadan way dhacdaa suxufiyiin badan baa qaldama way dhacdaa mas'uuliyiin fara badan baa qaldama inta badan waxaan ku xalinaa in aanu arrimaha isaga nimaadno xukuumadda runtii way yartahay in xukuumaddu falo ay qaadayso saxaafadda ka dhana ururka ku soo wargeliso halka ururku inta badan ka difaaco qarannimada iyo jiritaanka Soomaaliland iyo dibindaabiyo runtii xukuumadda ku soo maqan oo lagu sameeyo ilaa hadda wada shaqeynta soolja iyo xukuumadda iyo saxaafadduba runtii meel fiican bay marayaan dhacdooyinkii ugu dambeeyay arrinta inta badan imika taagan madaarka berbera runtii xukuumadda mas'uuliyiinteeda iyo saxaafaddu ka kulmeen wax dhibaato oo ay saxaafadda Soomaaliland ka samaysay arrintaas ma jirto wada hadalkii iyo waxyaabihii la isla qaatay runtii saxaafadda Soomaaliland way ka soo baxday hase yeeshee waxaan qabnaa falanqaynta iyo rogrogidda iyo la foguridda arrimahaas inay yihiin arrimo qaran runtii oo saxaafadda iyo muwaadiniinta Soomaaliland ay xaq u leeyihiin ma aragno ilaa hadda saxaafad ku gaftay ama suxufi ku gafay runtii arrintaasi ilaa haddana xukuumaddu may keenin waxaan u dhiganayaa haddii sharci lagu kala baxayana in aanu sharciga ka difaaci doono oo maxamed baashi iyo wariyaasha kale ee ku foogan shaqadooda runtii haddii dembi lagu hayo runtii aanu ka difaacno
haddii aan dembi lagu hayna runtii inaanu ka dhiidhino oonu xorriyaddooda in loo soo celiyo runtii ku baaqno ilaa hadda maadaama xalay u dhacay kiiskaasi waxaanu sugaynaa oon dhowraynaa in la hor keeno sharciga maxamed baashe haddii ay xukuumaddu ku adkaysanayso haddii sidii universal iyo mas-uuliyiinteeda usii deynaysan runtii bal waynu eegi doonaa maanta laakiin ururka soolja wuxuu leeyahay sidaan horeba u sheegnay sanduuq legal aid oo aan u samaynay suxufiyiinta oo aanu ku taageerno runtii nidaam sharciya inaanu ku difaacno anagu nidaam sharciyan ku difaacayna waxaanu aqbalsannahay in saxaafaddu ay sharciga dhowrto iyaduna in xukuumadda iyo mas-uuliyiinteeduna runtii ay sharciga dhowraan baanu ugu baaqaynaa intaas kusoo gabagabinaya waxaan mar labaad ugu baaqayaa xukuumadda somaliland haddii maxamed baashi wax dembiya galay in runtii sharciga la hor keeno sharciga aanu ku doodno haddii aanu wax dembiya loo haysana runtii in xorriyaddiisa loo soo celiyo aad baad mahadsantii ina baashe maxamed baashe xaji xasan iyo mulkiilahaba waan wada joognay xilligan oo kale wuxuu ii sheegay maxamed in 2-3 cisho muddo imika laga joogo uu soo jeeday sidii dhalinyaro fara badan oo doonaysa inay ka dareen celiso u dejin lahaa in uu ku qanciyo in sifo sharciya runtii ay u hadlaan xalay munaasabadii halkaa la isugu mas-uuliyiin fara badan baa joogtay maxamed xaashi cilmi baa joogay professor cabdisalaam yaasiin baa joogay dad badan oo aqoon-yahano kale baa jooga runtii waxay ahayd xaflad furan oo dadku aragtidooda ka dhiibanayaan runtii mana ahayn ku kooban oo keliyaata arrinta imika taagan ee ahmadaarka laakiin maraaxilkii kala duwanaa ee somaliland soo martay ee ay ka kow ahayd in dadka xorriyatul qowlka loo xidho runtii oo ahayd maalin laga dhiidhiyey bay dareenka dadku muujinayeen marka waxaan qabaa maxamed baashe xaji xasan waxa uu ka hadlay runtii inaanay ahayn kicin dadweyne inaanay ahayn dibindaabyo kalu qaranka somaliland soo maleegayey waxay ahayd mid babliga oo furan oo daawan doontaan hadalku ku hadlayna runtii waa hadal munaasiba oo munaasabadii xalay runtii ku qotamay maxamed baashe xaaji xasan si aad la socota waa qoraa weyn waa mujaahid dadkii 20 February ay saamaysay runtii marka maanta in loo xidho haddana isla wuxuu ka dhiidhiyey halkeenka oo gala runtii waxaan u aragnaa nasiib darro sidoo kale waxaan u aragnaa maadaama uu suxuf yahay aragtidiisa oo cabiro sharciguna ogolaya runtii sababta loo xidhay inay tahay iyaduna mid taalamidoo sharci darro